السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta meeshan waxaan ku haysanaa log hilib. Okay, halkan waxaan ku haysanaa waxaan oo aan ku dari lahayn halkan waa bay leaves, halkan waa dry chili, filfil, kan waxa waaye 7 seasons waxa la dhaho oo isku jirjir ah, xawaaji la isku daray, xabad basal ah iyo toon aan soo jarjaray, 3 xabo liin aan soo miiray, koob biyo ah. So halkan waa kan hilibka waxaan sameynaynaa, waan dulduleelinaynaa wax si aan u dhex gelino toontaas. Marka waxaan sameynaynaa liinta ayaan ku qoysanaynaa, toonti ayaan waxaan gelgelinaynaa hoolalkii aan sameysanay, toonta saa u gelgelinaynaa bas saas waaye. xawaajiyadii aan ku bilblaynaa, kan waa 7 seasonkii. waa dhinaca kale u reebanaya, kan waxa waaye filfishi, black pepper. Oyaa waxaa kaloo naga iloobay wax yar sug, waxaan naga iloobay saliid, olive oil ayaan ku darsanaynaa as well. korka uga shub xooyar olive oil ah, that's enough. sidoo kale baa sameynaysaa same process baa sameynaysaa. liintii ku shubanayna because waxaan rabnaa inay hoolalkaas galgasho intaanan ka awdin mogtahay. maxaa nooga xigay hoolalkii haddana fill garaynayna, let's fill it in. So let's do the same thing. xawaaji ku bilbil, kana ku bilbilaysa. haddaa rabtid waxaad ku darsan kartaa basbaas. so bay leaveska iskaga dhex labinayaa, hadaa time haysatid time aan ku ridi kartaa. bay leaves haysta time haysta at that moment, habadaas waxaa ku dhex. and then basasha waxaan ka dhiganaysaa 4, waxaan ku dhahaa afar jeex halka ka ridid, geesaha kaga ridid saas camal kale. labada basbaas sidaas, iyo biyahana salka ugu shub. waxaan ka tagnaa taqaana very important something, aan ka tagnaa cusbo. with me waxaa ilaaway wixii ugu muhiimsanaa, one of the important, cusba ilaaway. so cusba yara fiican uu qaataa, aan ku shubaynaa 2 dhinac basically. shubayna dhinac kale kumaan shubanin oil. sorry, trying to be quickly today. so set by dhamaatay. so sidaan عشان waa caadi markaa gubanayso oo markaaga dhigayso cuntada. and then aluminium aan soo qaadanaya, aluminium haddana ku dabanaysaa, amaba sidii oo kale ku dhahanaysaa, either way the same thing. so let's take it to the oven. waa sii shiday preheat waaye. noo sacbar ahaada waaye, noo sacbar 170, laakiin la soco maanta dhan because everybody different way ovenkooda. so la soco, keep checking. so insha Allah 2 saac ka bacdi soo noqonaynaa. bismillah. hadda marka 2 saac ka bacdi marka u soo noqday aluminiumka ka qaaday, heliyay 10 daqiiqo camal kala ah. waan u yar dheereysay xogeer u guduuto, korka ugu guduuto, laakiin waa kaas waa kala mataataxsan yahay, aad u bisil yahay, juicy waaye. korkan xogaa yariis ku qalalan yahay, inuu ka gubto ma aha oo dry ka noqdo, juicy waaye. waa kaas u jeeda
biyuu leeyahay yaas yarna waa maraq yaro macaan waa kaas saxanaan ku diyaariyey maasha allah kana hilibkii soo diyaarsan oo lagu soo diyaariyey qadadii kale maasha allah quruxuu egyahay miisku camirayaan ku dhahay si kale kuma garatid maasha allah